anigu waxaan ahay marka hore hooyo Soomaaliyeed wadanka aan joogaana waa wadanka Sweden waxaan ka imaaday Soomaaliya Soomaaliya sababta inaan ka soo baxo igu kaliftay dagaalada kaliya maaha waa wax shakhsi ahaan aniga taabtay xanuun taabtay baan uga soo baxay caruurtaydii ninkaygii walaalkay iyo hal mar waayay أنا يجي وايي أو أنتي كل هيستا صدق يفرع عيال هيستا ما يقدرش كيني اللي هو بدو كل فتاي قبل أنا إلى سعودي يصدق لبويل يا قبل وحي عنا ما أراديتي هو يردنا يما يجحد كرتي وانقاتي مركان ماشي كسر نقطين وحن وايي عروتي إذا أنتي إيه هدا يا أبا هيدتك أنتي إيه هدا يبان وايي وحن ما هذا مقالة عند السبب اللي يلهدو إثيوبيا كدب إثيوبيا سوقلي إثيوبيا مركان سوقلي وودنا ندقون وودنا ندأفكيس أقون وودنا ند إذا كوتشوق المركز وودنا ند أدونه هيسنين يبقى تدعى الله كل مكر قفك بلانك والله كل مكر دي ودري مكرتين أو المن هيستا حلقي الله الصعداء ومركان نرش تهريبتي سوقليسو حلقي الله الصعداء هالكاس الله الصعداء محل ساسا ليلايا وابا مدحي حرش تهريبته dadka u wada oo iyagu danaystayaasha ah oo raba dadka madarka saxara inta leeg uga dhigaayo wax inta iyo yitabooriyo kala ah baa waxay kaaga dhigayaan wax yar fudud oo isla markiiba talaabo ku jirto Yurub oo dhan baad ku aadaysid inta dhulka sokaysa iyo inta saxara ka sokaysa iyo inta meed arkay iyo inta baabuur ay saxaro ciidoodu duugtay aan arkay oo waxa maskaxdaadu ayna keeni karin dadka halka baabuurka kaga jabay bila shidalka ku noqday jidka ka dhumay meydadka yaala la fan noqday hatta haad cuna ma haystaan dadkaas halkaas bay ku dhamaadaan waxayna waxa lagaga dhigayaa dadka taariikhda waxa looga dhigayaa inay tahay halkan ka talaabso oo tukaankan aad okay waan dhahay oo alla baxay aniga markaas ma kala jecleen ba inaan noolaado inaan dhinto أنا عنقي ما أقول إنه صباحية عنقي كيف السودان جوجا وإلى صاحب لي تلفون السودان أي صاقلة تلفون السودان أي صاقلة وحلا يوقفك السودان كصاقلة أيوه وده اسمه قليل نحوي هاي سدح بري مسيحني ما أنتي ذنبه مر أي تاي مغرب أنا قلت كناي بقول نمبر كي سودا أي وحقبة استيلا حد هاي وإدريس حاجات جوكتا سودان أنشوجا صلاة دي باقي صباحي لحدين waxa jiraan ogahay warkaygii waxayba ahayd ba waxa la dhihi karaa malab jeednay oo kala socday meediyaha oo kala socday TV-yada wax xabdi bilaadanimada ka baxsan badina ka horeysan ogahay shock baan qaaday salaadaan ka baxay waan la hadlay Sudan xaq soo doontaan dhahay wuxuu yiri hooyo waxa ay haystaan nimankii tahriibayaasha ah nafti bay iga bixi gaadhin xadan iyo waxa jiroon ogahay iyo sidaan aniga ahay ana waxba awoodin iyo meesh oo wiilkaygu dhahay waan joogay dadka gacanta ku haya markuu ii sheegay aniga korontadii way iga tagtay wala hadii karo aniga dhawaan jiray waxaan weydiiyay walaalka aaway misla socotaan wuxuu dhahay maya ma ogi meel uu isaguna joogo aniga halkan aan ku sugnahay oo markay haddana igu sii darnayd waa wiilkayga waxaan ka sheekeynayo wiilkii waxaan ku dhahay hooyo wuxuu yiri waxa la iga baahan yahay $700 ba igu haystaan oo ay igu dhaheen cuntadii aan ku siinaynay iyo baskii aan kugu soo qaadnay waxaan ku yiri maxaa kugu kalifay wuxuu yiri hooyo waxa igu kalifay horta dhalinyartii oo soo wada socotaan arkay talabaad cid aan la joogan male Ethiopia waan ku daalay dadkii u dhashay baaba aan waxba ku haysanin marka waxaan isiriba hooyada iyo walaalaha u tag halka soo maraysid iyo waxa jira ma ogtahay hadda u dhowdahay Ethiopiyadii hooyo ha soo dhaqaaqin halkaaga joog halkaagana ka noqoto $700 ma ba haystee $700 baan halkan carar biilkayga marka la ii soo diro migration isiyaan wax yar baan idin siinayaa isii meel xawaaladaha waxay soo dirsadeen waxay siiyeen number telephone iyo xawaalada lagu diri lahaa bay ii soo sheegeen
waxaan rabay in marka la sii daayo wiilkayga oo Itoobiya iigu noqdo ilaa waxaan ogahay waxa ka soo horeeya lacagtii way soo qaateen isagiina meeshay ku sii haysteenba waxayba meeshii wayba dileenba markuu ka bixisiiri kuwa 700 qaatay kuwa kale u sii dhiibeen way gadeen $500 hadda soo dirwaday ugu yiraahdeen wiilkaaga saacada laga bilaabo saacad ka dambaysa maba hadalkiisa ma maqli doonto waan dileynaa $500 iyo wiilkaagi waan dileynaa iyo anigoo in waxba haynin oo meel aan ka keenay xitaa aan aqoonin waa arin adag bay igu noqotay cid iga caawinaysa male wax family ima joogaan waa aniga iyo gabdhahayga kaliya cidi deeminaysa xitaa male oo qoftu markuu sharciga waxay u soo dhacay la og yahay bay dadku xitaa wax siin karaan waxa igu noqotay inaan qabri ku dhex jiro aan meel aan uga baxaba aan garanayn isagoo la dilaayo codkiisa ay maqashiyeen garaacayaan ayga waydiin soo diray hooyay soo dir leeyahay أنا حلا ورها يقدلين ورها يقدلين ورنا كو صدر يا إنسان كو صدر قرمان كو صدر وحن كو هذا يموجي بيلك جنوا للدلو يا عد كيس اللي مقشينه يا ما أنك كان العكتي ما أقارنه وأنا مبنشة قصدي وش اللوجة جوتشيو مركز أهم كدب وحوي حول الدرق لمواي حل كانوا عرر وحدي ستة قد وحيروا هاي ستة قد وحيرة لقياشي قبل هاي وحيان مركيان دي وحشة تلين قد شو شاش قيسن ترى قد أنت كبح وحيوان سكو كاني يقو حقيقة بتنسدح بري أنا لكن شن يتوم بري يقو قاعدت تيم مركان هدنا بحيه وحال ماشي كالورا كذا شيء على شو بيوت dadkii waa sakaraadkii wiilkayga wuxuu hooyo waa sakaraad baana kii igu xigay uu dhintay kii iga dabo dhintay kan meesha ista chiefna uu dhintay waa intaas oo 1700 qof oo gurigaygan maaragta oo kale lagu xireeyay tan gurigayga waa isku wada furno hoolo jingado dhisteen ay ku xireeyeen wax halka